bismillahi raxmaan raxiim awal assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kulanti waxaan wanaagsan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale janaalkiina waa subscribe like share please waxaan igu soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay sportska update-kii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Marcus Rashford oo qarka u saaran ku biirista naadi kubadda cagta Barcelona miyay iibsan doontaa mise ama hayo ku bixid sidoo kale Asensio xidiga daafaca dhexe ee Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inuu qandaraas saxiix doono sidoo kale Brahim Diaz ayaa asina qandaraas saxiix cusub u bandhigay naadi kubadda cagta Real asina inuu aqbalay ee u baahan tahay sidoo kale Thibaut Courtois waxa ka reebin naadi kubadda cagta Real Madrid ayaa u jeestay dhanka heshiis kordhinta maadaama xilli ciyaareed cusub la bilaaw doono ciyaartooyda qaarna 2 sano ama 1 sano ay u hartay markan waxa leeyahay intii dhow ay qandaraaska saxiix doontaa markana Courtois ayaa leeyahay sidoo kale heshiis rasmi ayaa Aubameyang oo ugu wareegay naadi ka dhisan League 1 waa tuma naadigaas sidoo kale Xavi Simeone London naadiyaal ka dhisan ayaa u baahan waa kuwee naadiyaasha qarka ugu saaran ee ku tartamaya sidoo kale Barcelona ayaa go'aan cad ka gaartay Luis Diaz dhahdayna lacag intaas ka badan kuma bixinayay in la soo siixdo wararkaas iyo warar kale ciyaaraha la ciyaaraha saaxiibtinimada min Manchester ilaa ay kuwa kale ku soo dhawaada xaajo official fadlan subscribe noo saar like dhasiin share gareeyo la wadaag asxaabtaada haddii barteen Facebook ka daawanaysin follow iyo like share noo caawin u dhirgeli nagaarsi meel karmaadsanidin here we go naadi kubadda cagta Barcelona ayaa la soo wareegtay Marcus Rashford ee kanal soo wareegto naadi kubadda cagta Manchester United qaab ama Manchester United ayaan ogeyn iyadoo dalabkii Barcelona aqbashay ee ahaa ama option iibsasho la socdo marka Barcelona way ku guuleysatay waan la gabagabay heshiiska markana xidiga Marcus Rashford waa xidig ka tirsan naadi kubadda cagta Barcelona wax walba waa la dhameeyay waxay marayaan qeybihii ugu dambeeyay xidiga ayaa doonayo in mar un Barcelona oo ka dago diyaar u yahay tijaabada caafimaadna wuxuu mari doonaa isbuuc soo aadan Manchester United marka waa deysay ninkaas waa uu duuli doonaa saacadaha soo aadan Deco ayaa sheegay Hansi Flick sidoo kale ayuu yiri marka Rashfordna asigana wuxuu rabaa kaliya inuu ku biiro naadi kubadda cagta Barcelona January uu rabaa ninkaas marka January nin reewaay haddana waa loo fududeeyay waxa la aad marka lacagaha ay qaabka u kala bixi doonaan insha Allah way soo dhici doonaan waa nil soo socodsiin doona laakiin hadda Rashford official waa xidig ka tirsan naadi kubadda cagta Barcelona sidoo kale naadi kubadda cagta Real Madrid ayaa bayaan cad soo saartay oo ku aadan heshiis kordhin ee u sameysay Thibaut Courtois waa ogeen inuu goolahay fiican yahay la jabhadeenay ayaa ilaa heshiis 2 qalin ku duugay marka Courtois asin oo sii joogi doona ayaa leeyahay sidoo kale naadi kubadda cagta Real Madrid ayaa iyadana heshiis cusub u kordhisay ayaa leeyahay Brahim Diaz heshiiska waa la sameeyay waa la xaqiijiyay walow waxa saxiixa weel la soo bandhigin waxa leeyahay marka Brahim Diaz asina waa sii jooga Xavi Alonso waa uu kamid yahay qorshihiisa sidoo kale isla Real Madrid Raul Asensio ayaa lagu soo waramayaa inuu heshiis cusub u saxiixi doono naadi kubadda cagta Real Madrid heshiis gaaraya ilaa 2031 marka warkaas asina oo isku dhamaada leeyahay markana waa official waa wax dhow marka waa arki doonaa Real Madrid iyo xidiga ee la soo saxiixa doonto markana waxa leeyahay heshiis kordhinta ay qayb weyn ka geysanaysaa sidoo kale Aubameyang ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dagay League 1 Faransiiska asigoo ku biiri doono Olympique Marseille wax walba waa isku dhamaadeen waa uu ka soo tagay leeyahay naadigiisii hore weliba qaab free ah markan waxa leeyahay Sacuudi Carabiya warkiis waa dhamaadeen wuxuu rabaa ninkan Europe inuu ka xamaasho Champions League oo dheelo marka waa la arki doonaa wixii ku soo kordho laakiin ninkaas waa tagay official way sidoo kale Xavi Simeone ayaa isku dagaalaya naadiga ka dhisan London kuwaas oo ah Chelsea iyo Arsenal ayaa labadooda xiriir dhow la sameeyay Xavi Simeone iyo naadigooda xagaagan waxay doonayaan inay ku soo bandhigaan horyaalka Premier League iyo tartamada ay ka qayb galayaan marka Simeone waa arki doona meesha ku biirasina go'aankan dhinaciisa jira walow naadigana dhinac ka tahay heshiiska sidoo kale Barcelona ayaa iyadana ku dhawaaqday inaynan heshiis
ka badan 60 milyan kusoo bixi doonin Luis Diaz ayaa ogeyn inuu doonayo ku biirista naadiga kubadda cagta Barcelona kaliya inuu rabo wax kale uusan rabin. Bayern Munich oo diiday, PSG diiday, Juventus diiday, Barcelona bis. Barcelona waxay dhahay 60 ka badan ma awoodno, walaalkii waa ka haddii naadiga aad jajafayso 60 kaas ka yar ku imaan karto kale waa ka walo hadda Rashford ay la wareegeen wax macna ma soo kordhinayso. season ka soo socda la naqi kartaa sanadkan haas sii jabsado haddii 60 kaas malyan oo ogol yahana waa lagu camcamina waa way qaadan karaan. marka Barcelona waa kaya heshiiskaas Luis Diazna in meesha ugu baxeena ila tahay haddii mar la wareegay Marcus Rashford. Here we go maadaama lagu kala baxay wax walba oo Rashford ku saabsan isku dhamaadeen. marka Barcelona ayaa saacadaha soo aadan heshiiskaas dhamaystiri doonto, doolitaankii iyo waxyaabihii badnaa ay gali doontaa. marka Barcelona waa isxoojinaysaa season cusub iyo Hansi Flick mar kale inuu ka wacdareero La Liga. marka waa kaya wixii uu akhbaar ku soo kordho waa arki doonaa Barcelona iyo Rashford. intaas iyo ayaa kusoo gabagabeyn doonaa wararkan suuqa. wixii soo kordhina shortiga kala soco. intaas iyo amaana alla subscribe like share ayno balana mac salaam.